Suldaan Cabdiraxmaan Awgood oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland ayaa ka hadlay fadhiga ay maalinta berri ay yeelan doonaan mudanayaasha cusub ee aqalka golaha wakiilada Somaliland halkaas oo lagu soo dooran doono shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland. Suldaanka ayaa ku baaqay in nabadgelyada la ilaaliyo waxaanu sidoo kale fariin u diray mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada Somaliland. waxaynu ogsoonahay in haddii ilaahay ka dhigo maalintii beritaa salaasada loo asteeyay maalintii doorashada shirgudoonka ee mudanayaashii golaha wakiilada ku soo baxay marka hore doorashadii si fiican bay nagu dhacday ilaahay baa lagu mahadiyay dadkuna aad bay uga wada dareen wanaagsan intii doorashada ka dambeysay waxa bilaabmay loolan ku saabsan cidda shirgudoonka noqon doonta oo asxaab iyo maaragtay xukuumadba la kala jiidanayay arrintaa qaabkii loo galay iyo sida ay u dhacday waxoogay dhaawac bay ku keentay sumcaddii xildhibaanada niyad jab bay ku keentay dadkii sida wanaagsan u codeeyay niyadda ku codeeyay iyo doorashadii sida wacan u dhacdayba laana waxyaabaha dhacay waxay noqotay xildhibaanadii in si xun loo kala jiito in baayacad iyo lacag soo baxdo in sawirro soo baxaan in markaa sumcaddii xildhibaanada cusub oo la rajaynayay inay kuwii hore halkay wax gaarsiiyeen meel ka sii wanaagsan qabadsiiyaan dadkuna uu ku dadaalayay inuu maartay dad fiican soo xulo oo runtiina la oran karo dad badan oo fiican baa mudanayaashan dambe soo galay haddana arrintaas waxay keentay shacbigii moral jab weyn bay ku keentay soo doortay mudanayaasha maanta intaa marka laga gudbo waxa aan leeyahay berritay noqonaysaa maalintii shirgudoonka la dooranayay waxaan ku dardaarmayaa aan ku talinayaa aan weliba carabka ku adkaynayaa in si fiican oo hufan oo bilaa cunfiya oo aan musuq maasuq lahayn doorashadii nagu dambeysay ee uu baasha gudoomiyaha noqday Allahu naxariistee isaga iyo taliyaan la tartamayeen waxoogay buuq iyo qasb iyo istabamarin baa ka dhacay intan maanta way xasaasi shacabku sidii hore maaha uu soo jeedaa waxaan kula dardaarmayaa mas'uuliyiinta maaragtay madasha diyaarinaysa iyo maaragtay xubnaha baarlamaanka iyo cidda hagi doontaba in laga ilaaliyo wixii foolxumo keenayay iyo dhaawac in si degan loo maamulo in si hufan la isu doorto sidaasaan ku talinayaa waxa kale oo aan intaa raacinayaa mas'uuliyaddu maanta waxay saaran tahay 82 xildhibaan ee halkaas soo fadhiistay maanta shirgudoonka dooranaya waxaan leeyahay iska ilaawa wixii wiigan soconayay iyo wixii bishan soconayay ilaawa waa la idin dhaarin doonaa kitaabka ilaahay baa la idin ku dhaarin doonaa kitaabka ilaahay waxa la idin ku dhaarinayaa inaad dalka iyo dadka iyo diintaba daacad u noqon doontaan dalka iyo diinta iyo dadkaba inaad daacad u noqon doontaan marka la idin ku dhaariyo waxa ka mid noqon doonta cidda idin hogaamin doonta inaad ka fiirsataan oo dhaartaas waxa idin qaban doontaa haddii cid u aragtaan inaanay maaragtay golihiina hogaankiisa iyo masiirka qaranka aanay hanan karaynin nin walba fikirkaaga iyo qalbigaaga iyo adiga ilaahay baa isooge hadaa maaragtay maslaxad kale ama xisbinimo ama qabyaalad ku doorataan adoo dhaartay qarankiina waad khiyaamaysay ilaahina waad u been sheegtay waxaan leeyahay wixii axsaabtiinu idinku tiri ilaawa dadnimadiina isticmaala dhaarta ilaahay u dhaaranaysaan tixgeliya qaranka la idin doortay la doonaya inaad meel gaarsiisaan eega maskaxdiina ku doorta 5 sano soo socda cidda hogaamin doonta golaha baarlamaanka ee masiirkii ummadda gacanta ku haysa taa ku saleeya doorashadiina wax reer idin yaahdeen ku saleynina wax xisbi idin yidina ku saleynina wax dawlad idin tirina ku saleynina ragga tartamaya waa rag fiican waa rag caqiibo leh in cidna anigu wax ka sheegi maayo sida loo hadlayo waxaad arkaysaa ragga tartamaya rag qaar caaya qaarna amaanaya waxaan leeyahay arrintaas uma fiicna waa akhlaaq xumada maanta in soo dhex gashay ee maaragtay aan sheegay ee dhaawac ku keentay xildhibaanada aniga kelmadeydu waxay tahay ilaahina ka baqa wixii maanta imika soconayay ayaamahan oo dhan iska ilaawa beritaa la idin dhaarinayaa shirgudoonkii qaranka hogaamin doonay inaad doorataan baa la idin dhaarinaya waxa la idinku dhaarinayaa inaad dalka iyo dadka iyo diinta daacad u tihiin taasuun ka fiirsada ilaahayna wuu idin la xisaabtamayaa ummaduna way idin eegaysaa si fiican oo wanaagsan ay isu doorta ciddii ku guulaysatana ha loo hambaliyeeyo haddii ilaahay nafteena u daayo cali maxamed xuseen telefishinka saab Hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam
e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber